بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وولالكم سالم وكعذر دارن هيو باقشة لبدا هبين هاد قدام بعشرك ونقا باقضي عاو إن شاء الله حديثكي أفري تبنات أيام بالله بينا وانا درسي أفري تبنات من سلسلة الحديث 30 صدق حديثكي أفري تبنات بنعاو آخرين إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه. النبي عليه الصلاة والسلام wuxuu nagu baraarujinhayaa naguna cabsi gelinhayaa si niyadeena iyo caqligeena iyo maskaxdeena xoog ay ugu yeelato daacada ilaahay ee u fududaato jawaarixdeena inay daacada la timaado, quluubteenana iimaanka iyo taqwada iyo cabsida ilaahay ay ku beeranto, ciqaabta ay la kulmi doonaan dadka ahlu naarka. xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal uu noo soo jeedinhayo imaam tirmidi baa sunantiisa kusoo saaray min xadiid ibn cabaas waaye. waxaana la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaddan iyuu akhriyey kolka hore. wuxuu yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. dadka iimaanka la imaadayow, ilaahay ka baqa si xaq ah ilaahay oga baqa, hana dhimanina inaad islaamnimo ku dhimataan ma ogi. yuuna isku dayin shaydaanka ibliiska inuu idinka dhufto iimaanka markaad dhimanaysaan. yacni ku dadaalo xusnul khaatima inuu ilaahay maartay adduunka aad oga tagtaan. markuu aayaddan akhriyay nabigu wuxuu yidhi: faqaala rasuulu llahi sal ly slm sidan marka low anna qadrata min azaquumi buu yidhi, dhibic yar oo geedka zaquumka la yidhaahdo haddii ay qadarad kusoo tifqi lahayd fii daari dunya adduunyadan, la afsadad waxay ka fasahaadineed calaa ahli dunya adduunyada dadka ku nool, ama calaa ahli lardi riwaayad kale, dhulkan dadka ku noolba waxay ka fasahaadeen macaayishum noloshoodii. fa kayfa biman takunu dacaamuhu, ka warrama uu yidhi marka qofka hadda uu cunto ay u noqon doonto. waa qofkaan islaamnimo ku dhimanin oo iimaan la-aan dhinto oo ahlu naar noqdo, fanacuudu billahi min annaar, ayay cunto u noqon doontaa. geedkan marka zaquumka la yidhaahdo walaalayaal waa geed khatar ah. ilaahay qur-aankiisa oo aayado badan ku sheegay magaciisa, maadaama dadka ay niyada ay khayrka ku sameeyaan, ama ficilka ama waxa ku kiciyo qofka inuu khayrka sameeyo, arrimo kala duwan baa qof waxaa laga yaabaa ilaahayga fadliga iyo khayrka keenay iyo nabiga calayhi salaam uu usoo dhiibay jacaylkiisa ayuu u sameynhayaa. dad waxay u sameynayaan ilaahay jannadiisa iyo barwaaqada iyo dembi dhaaf inuu ku helo. dadna waxay u sameynayaan ciqaabta ilaahay ka cabsideeda. maadaama dadka ilaahay dabeecadaas uu kala siiyey, xadiidkan caawa aan cashirkan aan ku jirno waa axaadiista tusayso qofka ku kicin karto inuu iimaan iyo taqwo iyo cabsi ilaahay iyo daaco iyo khayr samayn, istikfaar, qiraa'at lqur'aan uu la yimaado, cabsi uu ka baqahay ciqaabta ilaahay subxaana wa tacaala. ciqaabtaasoo ay ka mid tahay cunooyinka jannaarta, cunooyin ka mid inuu nabiga tilmaamay nooca ay tahay iyo dhibaatada ay leedahay. dhibic yar oo geedkan zaquumka ah haddii tif ay ku dhahdo waa dhibic ugu hata adduunkan hadda 5 qaaradood ka kooban ee noloshoo dhan haleen lahayd. ka warrama yidhi ninka cunto ay u noqon doonto, sida cuntada ay ugu noqon doonto ahlu naarkana ilaahay geedka tilmaantiisa aayadihii uu ku sheegay aayado ka mid aan yar dul maraynaa. ilahay wuxuu yidhi: adaalika khayru nuzulan, markuu jannada ka shokeeyey ayuu wuxuu yidhi: ma sidaasaa degitaan iyo martiqaad ku fiican, amase shajaratu zaquum, geedka zaquumka la yidhaha miyaa martiqaad ku fiican. sifadii jannada markuu ka sheekeeyey ilaahay, inahaa geedkaas inaa jacalnaahaa buu yidhi fitnatan lidaalimiin, gaalada ayaa waxaan oga dhignay buu yidhi fitna. nabigay ku jeesjeeseen aayaddan markii ilaahay subxaana watacala ay soo degtay inaha takhruju fi asli ljaxiimi, ayaa waxay dhaheen geed iyo naar ma si isu keeneen, geed suu naar oga dhexbixi, geed naarta way gubi. fitna waaye marka, gaalnimadin baa usii kordhi. inahaa geed way shajaratun takhruju kasoo baxaysa fi asli ljaxiimi, naarta jaxiime la yidhaha bartankeeday kasoo bixi. dalcuhaa
booqeeda ama ubax ama meesha mirta kasoo dhalato kaanahu ru'uusu shayaadiin waxaad moodaa shaydaan madaxiis foolxumo waxay ka qabta geeda fa inahum la